السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وسلامتين داودyaal meel walba joogtaan si walba muuqaalka ugu daawanaysaan kusoo dhawaada cashirkeeni tobanii kowaad ee ku saabsanaa kooraskeeni computer asset accounting oo ka baranayna softwarekeeni b3 insha Allah maanta cashirkeena waxaan ka leenahay hal ujeedadeena waxay tahay selling inventory on partial cash iyo waliba partial credit inaan ku iibino badeecadaheena qayb ka mid diina ku iibino qayb ka mid aan cash ka iibino taas macnaheedu maxay tahay macaamiil isku fiican ah inoo imaaday marka dalab iyo alaab noo dalbaday alaabta markii aan u xisaabinay wuxuu dhahay alaabta lacagta dhan ma haysto marka wuxuu dhahay half cash ku dhiibaya half kan kale total ugu lahaa su'aalahan alaab noo gatay 6,000 door gaarayso wuxuu dhahay 6,000 hadda ma haysto 4,000 haystaa afartaa ku had sii qaada 2,000 deyn ahaan igu qor okay marka inta u gudbin cashirkeena ku soo dhawaada muuqaalkeena okay inta ugu gudbin waxaa rabaa markii aad sameeyno ama aad gadeen alaab aad gadeen cash iyo bill credit oo soo socda partial ah mid kasta qayb ay tahay akoonada ay saameyn doonto maxaa kamid cost of goods sold alaabta aad gatay lafay kugu fadhiyeen akoonka xisaabin jiray sidoo kale waxaa kamid inventory asset akoonkii noo xisaabin jiray dhammaan badeecada dukaanka noo taasho qiimaheeda uu yaraan doonaa okay waxaa kamid akoonada cashkaaga waa uu kordhi doonaa maadaama qayb kamid series lagu dhiibay cash lagu dhiibay okay hoostiisa account receivable kamid soo kale revenue ga uu ku doonaa maadaama series u dhacay okay deen ha ahaato ama cash ha lagu siiyo series ka dhammaan uu ku doonaa okay inventory item inta alaab ku taasho tiradoodu way yaraan doontaa okay soo kale waxaa kamid customer balance macaamilkan lacagta ku leedahay way ku doontaa intaas oo koona ay saameyn doonaa bal hadeertaan aan isku dayo inaan tuso iyo practical waxaa tigin halkay qoran tahay b3 ina soo kacayna b3 markuu saan kugu soo kaco waxaa tigin halkay qoran tahay tasks waxaan kasii dooran doonaa sales/invoicing markaa sidaan aan u doorano waxaan soo bixi doonaa qaanada erista halkan waxaan qoraysaa customerka IDgiisa hadaad taqaano haddii aadan aqaanin inta furaysaa waxaad soo dooran doontaa customerka okay hadda waxaan u sameysanahay hal customer okay customerka aan ka iibinayna halkan waxaan gelinaynaa invoice ama qansheegada aan wax ku gadayno numberkeeda aan gelinayna okay numberka waxaa la taas gelin kartaa okay marka intuu imaan waxaan gelinaynaa quantity inta alaab oo naga ninkaan gelinayna tusaale waxaan leenahay 30 xabo naga okay 30 xabo markuu naga gatay inta tagayna okay shaygan oo inaga iibsanayo okay shaygan oo inaga iibsanayo muxuu yahay IDgiisa gelinayna shaygan hadaan aqaan inta taawo alaabta iibsadna ku soo bixi doonto oo hore u soo garastay Samsung aan noo yeelanay halkaas Samsung aan gadeen okay intuu tag oo u jeedaa ninkan ana amountiga isku naqtay 6,000 okay waxaa laga rabaa ninka 6,000 okay sida fadado diinahan uu ku doonto okay waxaa rabaa 2,000 inuu isiiyo 4,000 diinahan uu qoro okay meeshaan ay qoran tahay amount bid at sale ku dhufanayna okay marka ku dhufato inta ay furaysaa okay waxa ku soo bixi doona akoonada cash kuwa okay ninkaan lacagta uu ku kushay lacag cadaan uu kushay mise bangiga ku soo Islam Bank Dabshil akoonada EFC ga akoonada oo cash ka ah ku soo bixi doona okay salaam waxaan leenahay akoon Islam Bank lacagta noo dhig okay okay Islam Bank noo dhuf okay inta tigina reference gelinayna reference oo markii transaction dhacay references okay inta tigina waxaa leenahay amount receipt ama receipt amount in salca uu nasiin kan okay ninkaan abaas lahay meeqa ay uu nasiin 2,000 uu nasiin salaam 6,000 ay karibnay inuu nasiiyo laakiin 2,000 uu nasiiyo 4,000 waxay noqon doontaa diin ku noqon doontaa okay noo dhig marka wax kale leeyahay waxa u jeedaa 6,000 aan karibnay 2,000 bixi 4,000 laga rabaa dirtaan okay si fadada transaction way dhacay laakiin waxaa rabaa transaction si u dhacayna okay hal marka bax waxaad teginaa maintenance ka qoranta waxaad sii doonaa chart of accounts waxaa rabaa akoonada balance ugu jiro inaan score intaan sameyn transaction okay waxaad teginaa halkay qoranta list markaad tagno si aan noo soo bixi doono okay cashka akoonkaas cashka ma saameyn doonto maxaa yeelay anaga waxaa soo doonay akoon kale oo cash Islam Bank saameyn doonto okay cashka aad siiso ahaan doona okay maxaa yeelay anaga marka lacag cadaan ma nasiin akoonka Islam Bank oo noo soo dhigay akoonkan cash akoon kale oo leeyahay Islam Bank akoonkaas kale saameyn doonta okay hoos cost of goods sold waxa uu jeedaa inay noogu jirto 3,600 okay way ku doontaa cost of goods sold waxay xisaabisaa alaabta aan gatay qiimaheeda xisaabisaa okay alaabta aan gatay anaga hadda waxaa gadoonaa tusaale 30 mobile gadoonaa okay 30 mobile waxa ku dhufanaysaa inta ku fadhiya halka mobile waxa uu fadhiya $180 soddon haddii aad ku dhufan 180 waxay noqon doontaa 5,400 okay 5,400 waxaa ku darsan doontaa 3,600 hadda ugu jirto
waxaan rabnaa cost of goods sold inay noqoto $9,000. Okay, hoostiisa waxaa ku jiro inventory asset. Inventory asset waxaan ugu yaal hadeertaan $18,000 noo taasho. Okay, inventory asset wuxuu qiimeeyaa badeecada dukaanka ku taasho dhammaan oo qiimeeyaa wixii qiimeeyaa. Okay, 18 Soomaal waxaan rabnaa inay ka go'do idin 30 mobile oo noo tiishay oo ku dhufo 180 waxaa soo bixi doonto 5,400. 5,400 hadda 18 ka jirno waxaa soo bixi doonto 12,000 iyo waliba $600. Okay, hoos siiso Salaam Bank oo cash ah. Okay, akoonkan cash ka saameyn doonta waxaan ugu jirto $8,000. Okay, $8,000 waxaa dhan ninkaan Cabaas lahaa $2,000 nisi $2,000 doonaysi 2,000 bangiga noo dhigay inta ku darsami doonta. Okay, waxay noqon doontaa $82,000. Okay, hoos siiso account receivable ama diinta macaamiishan aan ku leenahay waxaan ugu qoran inay tahay $102 inay taa noqon $102 waxaa ku darsami doonta $4,000 oo hadeertaan aan ka rabin ninkaan Cabaas lahaa $102,000 4,000 haddii ku darno waxay noqon doontaa $106,000. Okay, hoos siiso مسامين دون fixed asset مسامين دون fixed asset كلا مسامين دون account payable مسامين دون اوكي دخلي ام revenue waxaan ugu jirto lacag gaarayso $4,000. Okay, waxaan rabnaa revenue weyn inay ku darsanto $6,000. $6,000 oo ka imaaday 30 mobile aan gadnay xabadna waxaa gadnay $200. Okay, revenue weyn waxaan rabnaa inuu noqdo $6,000 inay ku darsanto rabnaa. Okay, oo noqdo $10,000. Okay, soo kale waxaan rabnaa customer balance. Okay, waxaan tegnaa meediin waxaa soo dooran doonaa customer splash prospectus waxaan kasii dooran doonaa list meesha ku qoran tahay list markaan doorano waxaan u jeedaa ninka Cabaas lahayo inaan ku leenahay $2,000. Okay, 2,000 isla ku leen hadeertaan $4,000 diin rabnaa ama xarama inay noqoto $6,000. Okay, $6,000 ka rabnaa meeshaan oo soo soo kale inventory on hand inventory ga ay soo introduce inay yaraataa waxaan tegnaa meediin waxaan kasii dooran doonaa inventory items waxaa kasii dooran doonaa list quantity on hand waxaan ujeedaa inay tahay 100 xabo inay tahay ujeedaa 100 xabo mobile aan tahay 3 xabo gaadina 3 xabo gaadina waxaan rabnaa inay noqoto 70 xabo. Okay, intaas oo meel ay saameynaysaa transaction ka. Okay, waxaan mar transaction ka aarin. Okay, noo soo bixi marka aad noo soo bixiso save adeena. Okay, save markaana inta aad doonto saakirma inay noqdaan haddii noqon waayaan qalad baa jiro. Okay, save noone wuxuu ku leeyahay ninkaan Cabaas lahaay wuxuu gaaray xad diinta la sii jiray uu dhaafay ee marabta inaad diintaas sii siiso xad waa si sameystaa jirto oo $3,500 isa $2,000 ku leeyahay hadeertaan $4,000 ku leeyahay $6,000 inaa ku lahaana rabaa laakiin wuxuu sameystay xadka macaamiisha inuu gaaro $3,500 qof ka badan uu yeesho inuu ku soo sheego marabta ku dhahay ninkaan $3,500 ka badan inaa ku yeelato maadaama $2,000 isla ku leeyahay haddana $4,000 ku yeelanayso ha iskale waa yaqaana ninkaan. Okay, transaction ka hadeertaan wada. Okay, waxaa teginaa akoonada inta u saameeyay. Okay, waxaa teginaa halka qorantaa maintain anaga ku sii dooran doono chart of accounts ku sii dooran doono list. Okay, refreshing ay isku darayaa sidaan u soo helo cash keena ma saameeyay. Okay, cash on hand ma saameeyay maadaama ninkaan oo lacag cadaan aan siin oo bangi lacagta noo soo dhigay. Okay, hoos siiso waa ujeedaa cost of goods sold in $9,000 ay noqotay isla waxaan ugu jirto $3,000 $5,400 ku darsanta. Okay, hoos siiso inventory asset ujeedaa inay noqotay $12,600. Okay, isla waxaan ugu jirto $8,000 waxaa ka go'day $5,400. Okay, hoos siiso Salaam Bank waxaan ugu jirto $8,000 hadda nasiinkaan Cabaas lahaay oo noo soo dhigay $2,000 nagu darsanta. Okay, hoos siiso diinta macaamiishan ama account receivables kana $2,000 nagu jirto hadeertaan waxaan ugu jirto $106,000 $4,000 ninka Cabaas la ku leenahay. Okay, hoos siiso fixed asset مسامين fixed asset كان مسامين account payable مسامين revenue أم دخل ويسامين إسا waxaan ugu jirtay $4,000 hadeertaan waxaan ugu jirto $10,000 intaas waa sidii aan karibnay u dhahan waxaan tagnaa sidoo kale customer balance anagoo tagayna halka qorantaa maintain kasii dooran doona customer slash prospectus waxaan kasii dooran doonaa list. Okay, list markaan kasii doorno Cabaas ninkaan lahaay waxaa ku leeyahay $2,000. Okay, hadeertaan $4,000 diimin waxaa ku leeyahay ninkaan $6,000 ku leeyahay. Okay, sidoo kale quantity on hand ama inventory item isla waxaa noo tiishay 100 mobile noo tiishay. Okay, waxaa rabaa inay noo taashto 20 xabo maintain tingna waxaa kasii dooran doonaa inventory item waxaan kasii dooran doonaa halka qoranta list kadib waxaa ujeedaa inay noo taalo 20 xabo noo tahay 30 xabo kamid ah waa dagi marka bitriga asiga ayaa yaqaan akoonada saameynaysa dhan asiga ayaa yaqaan marka waa barnaamij professional aan dhihi karnaa. Okay, waxaan rabnaa inaan tagno
income statement okay waxaan rabnaa sida u sameysay okay waxaan tegaynaa halka ku taala reports and forms waxaan kasii dooran doonaa financial statements markaan doorano waxaan leenahay standard income statement okay sida okay waa ujeedaa revenue-geena inuu gaaray $10,000 okay 4,000 inta nagu jirtay hadeertaan waxaa nagu jirto 6,000 aan kasoo darsana $10,000 revenue-gu $10,000 markuu yahay cost-geena noogu fadhiyo $10,000 waxay tahay $9,000 meeqa ka faa'iido marka $1,000 expense waxaas dhan ma bixin weli expense casharada soo socda qaadan doona si loo baxsho expense bas intaas aan kusoo koobno cashirkeeni ku saabsanay inaan ku iibino alaabteena qayb kamid ah diin aan ku iibino isla markaasina qayb kale oo kamid ah ku iibino cash aan ku iibino wacad bas xasan nuur oo idin lacag u dhaxal reebi karo ha noqon inta aan la timi wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh